Goormee ugxanta gabadhu uur qaadis diyaar u tahay? Uurku waa mid ka mid ah hibooyinka la bixiyo, haddana waxaa jira waxyaabo gabadha ka saacidi kara inay si fudud uur u qaaddo. Marka ninka isku haadiyo waqtiga ugxanta diyaarka u tahay uur qaadis, waxaa fududaanaysa in gabadhu uurka si fudud ku qaaddo. Ugxantu waxay diyaar noqotaa marka gabadha caadada ka qubaysato isbuuc kadib. Tusaale, haddii gabadhu dhiigga ama caadada ka qubaysato maalin Jimco ah, ugxantu waxay uur qaadis diyaar u tahay Jimcaha gabadha dhiigga ka qubaysatay Jimcaha ku xiga. Labada Jimco inta u dhaxaysa oo ah isbuuc waxaa loo yaqaanaa isbuuca diyaargarowga ugxanta. Inta badan dadka isqaba waxay dadaal sameeyaan isla maalinta gabadhu dhiigga ka qubaysato, taas oo ah fursad 100% inay gabadhu uur ku qaadi karto. Haddii gabadhu maalin Isniina dhiigga ka qubaysato, Isniinta kale ayay ugxantu diyaar u noqonaysaa uur qaadis. Sidaa darteed, markaas gabadhu waxay haysataa fursad 10 maalin ah oo ka bilaabanaysa maalintaas in gabadhu uur qaadi karto. Inta gabadhu uurka raadinayso waxaa ka mamnuuca inay isticmaasho daawooyin aan dhakhtar soo qorin. Daawooyinka qaar waxay yareeyaan ama ka hortagaan fursadda gabadhu uur ku qaadi karto, sababtoo ah waxay daawooyinku ka hortagi karaan awoodda ugxantu bacrimin ku samayn karto. Sidoo kale waxaa jira cuntooyin gabadhu ay qasab tahay inay ka fogaato si ay u fududaato inay uur qaaddo. Malabka waa mid ka mid ah waxyaabaha mamnuuca ka ah gabadha inta uurka raadinaysa iyo marka ay uurka qaaddo kadib, sababtoo ah malabku wuxuu yareeyaa fursad kasta oo ugxantu bacrimin ku samayn karto. Like saar muuqaalka si saaxiibo badan uu gaaro. Haddii aad nagu cusub tahayna ha iloobin inaad subscribe saarto.